dagaal qaraar oo u dhaxeeya dagaalamayaal ka tirsan shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ayaa ka socda deegaano hoostaga gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hiirshabelle. Soo dhawaada saaxiibayaal, wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaas ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Cumar Guxayaan hay haddii uu muuqaalka idin soo gaarto share gaar saaxiibadana la soo wadaaga qaybta hoose falan aragti noogu wadaaga. Mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. dagaalkan oo muddo dhowr mar la isku soo noqnoqday isla markaana u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka oo isgarabsanaya iyo dagaalamayaal ka tirsan shabaab ayaa ka socda deegaan lagu magacaabo Cadowguri oo hoostaga degmada waa Buulaburte ee gobolka Hiiraan, sidoo kalena u dhaxeeya Halgan iyo sidoo kale Buulaburte. wararka ayaa sheegaya in ciidamada deegaanka iyo kuwa militariga Soomaaliya ay ka war heleen in dagaalamayaal ka tirsan shabaab ay isku urursanayeen deegaan hoostaga Buulaburte. halkaas ayaana la sheegay inay ku baxeen xogtii ay heleen, waxaana taasi ay keentay in dagaalamayaal ka tirsan shabaabka oo deegaankaas Cadowguri lagu magacaabo isku urursanayay maalmihii la soo dhaafayna xadka webiga Shabeelle ka soo tallaabay ay halkaas ku sugnaayeen iyaga iyo dad horjoogayaal ah oo waliba xubnahooda ka tirsan. taasi ayaana keentay in dagaal xoogan oo halka ka qarxo. wararka ayaa sheegaya in jugta hubka culus laga maqlayo deegaano ku teedsan Cadowguri oo hoostaga Buulaburte, iyadoo la sheegayo in dagaalka uu sii xoogeystay ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay helayaan gurmad xoogan oo kaga imaanaya Buulaburte iyo deegaanka Halgan lagu magacaabo oo gobolka Hiiraan hoostaga. dagaalka oo aad u qaraar ilaa iyo hadda lama sheegin khasaare rasmi ah oo ka dhashay maadaama uu dagaalka sii socdo, sidoo kalena marba marka ka sii dambaysa rasaasta ay sii cuslaanayso dagaalkana uu sii xoogeysanayo. wararka ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan shabaab waliba kuwa horjoogayaal ah lagu dilay dagaalka, inkastoo saraakiisha militariga Soomaaliya xogahaas ay baahiyeen, haddana warar ka madax bannaan dhinacyadan ma jiro oo xaqiijin kara khasaaraha rasmiga ee dagaalka ka dhashay. dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay ilaa iyo saacadihii la soo dhaafay nabadoon iyo macallin dugsi Qur'aan lagu dilay deegaan lagu magacaabo Caloolweyn, taasi oo la sheegay inay hoos tagto degmada Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. xiisad ka dhalatay arrintaas ayaana ka taagan gobolka Shabeellaha Dhexe, si gaar ah degmada Warsheeq tuulooyin hoostaga oo waliba ku tirsan deegaankaasi. Caloolweyn waxaa la sheegay in nabadoon lagu magacaabo Cumar Abuukar Allah u naxariistay la dilay, macallin dugsi Qur'aanna la dilay, kaasi oo sidoo kale uu ka horreeyay wiil dhalinyaro ah oo maalinimadii Isniinta ahayd ee ka soo tallaabnay toddobaadkii hore lagu dilay isla deegaankaas Caloolweyn lagu magacaabo. taasi ayaana keentay in maleeshiyaadkii dilay wiilkaasi ay iyagana saacadii la soo dhaafay dil u geysteen nabadoonkaasi Cumar Abuukar lagu magacaabo iyo macallinkaasi dugsiga Quraanka. sababta loo dilay ilaa ay hadda laba sheegin, laakiin wararka ayaa tilmaamay xogahan helayno in aana qabin loo dilay nabadoon Cumar iyo sidoo kale macallinkaas dugsiga Quraanka ee la dilay. wiilka maalinimada Isniinta ee la dilay waxaa la sheegay isagana in uu dhalay nabadoonka maalinimadii shalay la dilay ama saacadii la soo dhaafay, iyadoo sidoo kale dilalka aanooyinka qabiil ku salaysan inta badan ay ku soo noqnoqdeen deegaanada Hiirshabelle